bismillaahi raxmaani raxiim bilow baraka leh maanta waxaa noo daaran aniga iyo nin dhalinyaro oo saaxiibo aan nahay oo aad wada taqaanaan xoolaheena saaxiibkayga waad arki doontaan sheekadana waad dambeyn doontaa sheekadana waxa waa intaan waa ka ballaaran tahay isla soconna marka yuusuf maanta waxaan booqan doonaa beeraha magaalada Gaalkacyo dadka inay mataqaana xoolihii soo fahmiyaan oo xoolihii soo dhaqanayaan marka laftigeedu xoolihii maanta waxay heleen daweyn iyo dabiib iyo ka warqabid waxaan rajayn doonaa in fiidiyogaas insha Allah dadku wax badan ay ku baran doonaan haddii Alla idmo markasta xoolaheena wuxuu u baahan yahay daryeel iyo dabiib meel kasta ay joogaan marka bulshada hadda aad buu soo fahmaysaa reer Gaalkacyoodka in beerihii iyo xoolihiiba la soo galo ahmiyadooda maanta dalkii bulshada ay u soo jeestaan anaguna markasta waxaan u taagannahay cilmigan soo baranay inaan bulshada markasta aan dib ugu laabanno aan dib ugu feedback ugu celinno bulshada yacni inaan soo fahansiino in xooluhu laftigooda ay caafimaad iyo daryeel u baahan yihiin marka waxaan leeyahay xooluhu markasta meel walba joogaan Soomaalida 100% waa dad xoolaha ku nool
weli waxaynu ku guda jirnaa booqashadeena la xiriirtay xoolaha dalkeena gaar ahaan halkan aan maanta wax ku duubeyno waa duleedka magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. waxaa igu weheliya socdaalka halkan aan ku soo gaaray Dr. Dirshe Dube oo runtii ah dhakhtar cilmiga xanaanada xoolaha bartay. isaga ayaana inta badan sharaxaad badan inoo sameyn doono. anna hadba waxaan sameyn doonaa wixii halkan aan kala kulmo warkood galeen doonaa si dad badan oo iyagu ku haminaya inay xoolo samaystaan ay halkan ugu noqoto dhiirigelin iyo casharo muhiim u ah hayaankooda bilowga ah. habkan xoolaha loo dhaqo waxa la yiraahdaa intensive farm oo ah in xoolaha aysan bixin halkaasi ma taqaanaa cunadooda lagu siiyo yacni neefkii maintenance-gii laga daayo bixitaanku baxayay oo energy-gu soo dhuminayay iyo markuu la soo xareynay oo energy-gu soo dhuminayay halkan beertani ku joogayaan way ku daaqayaan cunooyinkooda halkan lagu siinayaa yacni neefkii yacni wuu cayilayaa muddo yar oo kooban fitamiinkii markii supplement-gii la siiyo waka halkaasi ku xariisan yihiin kugu nasanayaan cunadoodana lagu siinayaa waa habka ugu wanaagsan ee xoolaha maanta adduunka alla jaan qaadi karno. maanta yacni waxaan idin sharaxayaa looyada noocyadooda kala duwan. looda wax loo kala saaraa laba boos toras iyo boos index yacni loo tuurley iyo loo aan tuurleen. tusaale maanta looda Soomaaliga wataas waa tuurley tan dibadda laga keeno oo ah cross breeding lagu sameeyo loo dibadeeda Hollandeyska ah Holstein Friesian la yiraahdo kurus ma laha waa simanta iyadoo dhan yacni waxa weeye waa loo caanaha ku fiican iyadoo laakiin hal caqabad bay leedahay markii cross breeding loo sameeyo yacni waxa weeye isbam loo Hollandeys ah ama mataqaana loo Hollandeys oo la keenay ayaa taa Soomaaliga lagu talaalaya kadib maxaa ka soo baxaya loodaana ka soo baxaysa. looda marka maxay u fiican tahay iyada yacni iyadu waxa weeye waxay ku fiican tahay deegaanka cimilada way la qabsanaysaa oo si tii dibadda kale oo mataqaana nature-ka kale ma ah. mid labada kalena waxa weeye ku fiican tahay xanuunada xoogaa u adkeysan kartaa laakiin iyadu xagga cunada aad ugu daran tahay cunada ma aragtay aad bay cunada mataqaana ugu baahan tahay laakiin maxay ku siinaysaa caanay ku siinaysaa halka tan kale oo Soomaaliga xanuunkiina mataqaana u adkeysanayso cunadiina mataqaana u adkeysanayso caana laakiin kuma fiicna iyada maxay ku fiican tahay hilib bay ku fiican tahay tan Soomaaliga laakiin tan kale waxay ku fiican tahay waa xagga caanaha halkii neef haddii cunno fiican la siiyo oo mataqaana feed formulation sax loo sameeyo yacni halkii neef feedka la siiyo wuxuu ku dhali karaa 24 saac 30 koon baa laga yaabaa inay ka meesho marka markaste xoolahaayna yacni waxay ku fiican yihiin xagga hilibka qaybtood. annaga Soomaali maxaa naga dhunsan waxaan la yiraahdo cross breeding wax la yiraahdo naga dhunsan ama genetical in la hormariyo breedka ugu fiican caanaha iyo hilibaan